بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو كبلابانيا آيات لباد oo suuratu dalaaq kamida Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nooga soo waramay suuradan la yiraahdo suuratu dalaaq iyo ahkaamtiisi ayaa Ilaahay nooga soo waramay markii arintaas Ilaahay noo soo cadeeyay waxa weeye Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu dhahay arintaas xuduud Ilaahay weeye qofkii xuduudaas alla ka gudbo ka talaabsadana naftiisa u dulmiyay qofka mudalliqaha Ilaahay la khidaabayo waxa uu dhahay Allah wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu keeno amuur oo keeno oo qofkii dadkii inay isku soo noqdaan qalbigooda lagu soo rido oo rajca loo baahdo marka taas ayaa ima karayse waxa weeye qofkii waa inuu haweenta uu ku furaa hal dalaaqo ama laba uu ku furaa marka uu bato halkaan hadda Ilaahay wuxuu nooga waramayaa haweentii markii la furo oo markaasi cuddo tirsato cuddadeedii baa dhamaanaysa cuddadooda marka waxa weeye intaysan dhamaanin haddii hal dalaaqa lagu furay ama laba lagu furay wixii la yeeli lahay iyo haddii cuddadoodu dhamaato ayaa Ilaahay nooga waramayaa Allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala fa idha waqtigi balaqna ay gaaraan oo Ilaahay ajalahunna ajalkoodi ay gaaraan haweenkii la furay weeye marka hadda balaqnadan waxa weeye qaarabna laga wadaa inqidaa ciddatiina sida siyaaqa aayada qaybta dambe ay keenayso haweenkii markay u dhawaadaan in markaasi ciddadooda ay dhamaato waa markii haweenta hal dalaaqa lagu furay ama laba lagu furay fa idha waqtigi balaqna ay gaaraan u dhawaadaan oo Ilaahay ajalahunna ajalkoodi waqtigi ciddada u dhamaahaysay fa amsikuhunna haystow dhah Ilaahay waxa lala khidaabayaa raggi maaratay mudalliqiinta ahay oo wax furay ayaa lala khidaabayaa Ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala fa amsikuhunna haystow dhah Ilaahay macnaha waxa weeye baan turaajicuhunna waa inay soo cishataan oo haweentii markay cuddadii inay go'day u dhawaato ninka waxa u banaan markaasi inuu naagti soo rajciyeysto ayaa u banaan dalaaqa rajciga ha laga wadaa markaasi al madkhulu bihinna waliba waxa weeye dalaaqa oo naagta la dukhula la naag madkhulaha laga hadloo haya naag la jimaacay ayaa laga hadloo haya naagta aan la dukhulin waataan ku soo mari jirnay suuratul ahzab aanu ku soo mari jirnay oo wax idaaho ileedahay taas ma jirto naagta markii waxa weeye aan la dukhulin hadii la furo hal dalaaqa hadii lagu furo ama laba lagu furo halkaas waa uga dhamaatay wax dambe cudaaho ileedahay ma jirto horey ka guursan kartaa hadii hal dalaaqa lagu furo ama laba lagu furane ninka xataa laftirkiisu ku furay dadka markaasi guursanayo la heshii karo kamid yahay laakiin haduu saddex ku furo markaasi kuma soo naqa kariyo meeshaas waxa weeye waxa ku jirta markaasi baabul fiqhi waxa ku jira markaasi dadka qaar dadku ay fahamsanay oo dadka caamada ah culimadu waa fahamsan tahay dadka fuqahaada ah waxa weeye hadii mesela manaagti غير madkhula ay taho aan la dukhulin saddex dalaaqa hadda ninku ku furo naag madkhulaho saddex dalaaqa lagu furay la xugu naqaysa meeshaas dadku waa iska fiirshaan gaar ahaan dadka caamada ah laakiin hal dalaaqa hadoo furo ku furo ama laba ku furo ama waa ku furo hadoo hal dalaaqa ay ku furo waxa weeye asagii waxa ka mid noqon karaa markaasi dadka wax ka shukaansanaya naagta oo markaasi inuu guursado raba hadii markaasi heshiis ay yeelayso ay heshii karaan ayuu ka mid noqonaya laakiin haduu saddex ku furo uga mid noqon maayo dadka hadda laakiin meeshaan hadda aayadatan sida Ilaahay nooga waramayo waa naagihii madkhulooyinka ay weey fa idha waqtigi balaqna ay gaaraan u dhawaadaan oo Ilaahay ajalahunna ajalkoodi oo cuddadooda ay dhamaa rabto fa amsikuhunna haystow dhah Ilaahay amarkaana sidiisaba waxa weeye amrul wujuub maahan waa markaasi waa amru iska amru nadbi weey hadii haweenta markaasi la doonayo wanaag in lagu dhaqdaa sala rabaa وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا واتانو كسو مرجرنا سورة البقرة أنو كسو مرجرنا وناكتو عدة تربص هذا يكجرته رقي فري أياكو حق له عدك لو شغل كلا مجر وهاسد قمدا سوماليدا كمدا ناكتو عدة رجعية كجرته هي نينكا دو كسو عشدي يرادو oo xuk ku laabato naagnimadeedii oo gurigeedii ku laabataa waajib ku ah in lafkaas lagu dagaalo oo la yiraahdo markaasi waxa weeye saa markaas arintaas ku dhacday in la yiraahdo
waxay khilaafayaan qowlka ilaahay maxaa yeelay ninku asaa xaq lama cidda kala hadlaysa wax shuqul hay ku leedahay ma jirto waxa la rabaa wixii xaraama in laga hortago ee wixii ilaahay baneeyay inay markaas la daayo dadka marka waxay u badan tahay Soomaalida ama dadka caamada ah wixii xumay inaysan ka hortagin wixii xumay oo shariicada ku xumay inaysan ka hortagin ay raaliba ku noqdaan bacdigood wixii fiicnayna inay ka hortagaan taas musiibo weeye فأمسكوهن هايستو إلهي بمعروف وصل إلهي سي معروف وناك من غير ضرار الربا دبلان سبتو هذا سورة البقرة مركز سومريني إلهي وبعولتهن حق بردهن مركو دهي الله في ذلك إن أرادوا إصلاحا الإله وهدي دون أيان ددكاس ناغها سوء عشاية إصلاح أي ربان أو قوينتي وناك إنay ku dhaqdaan oo xumaanti jirtay meesha ka zuuliyaan oo wanaag sameeyaan oo wixii xumaanay meesha ka tiraan markay rabaan way oo wuxuu dhab ay ka tahay laakiin haday larar ay tahay xaraam way taas wala tumsikuhuna liraran oo dhahay waa taan Soomaali jirnay naagaha in dib lagu haayo lama rabo oo la iska haysto idoo la dhigo lagu dhibaayo oo soo celinta lagu dhibaayo oo amba la iska haysto ayadoo wax nafaqa iyo wax xuquuqdeedii alla siiyeen in la iska haystana xaraam way ayaduna qofkan haday qalbigiisa ku jirto haweentan yayna meel kala aadin amba ayada ku dhibaatay ee saas uu ku soo cilaayo oo san islaax oo san ka ahaynin xaraam ayuu galowhaya ilaahi agtiisana waa la ciqaabaya laakiin sharciga daahirkiisu marka hada soo cisho naatiis rajiyaysa waa ogol yahay laakiin qalbigiisa ilaahi baa og waxa uu ka helo iska leeyahay markaas maalinta qiyaamo wax ka heli doona faamsikuuna ayuu ilaahi bimacruufin oo ilaahi ku xijiba macruuf waxa la rabaa si wanaagsan oo macruufa oo dhibaato aan lahaynin oo markaas qofkan inuu haweentiisi oo dhaqdo ay ka go'an tahay oo amba safaariquhuna oo ilaahi iska sii daayo oo ilaahi bimacruufin si wanaag faariquhuna hada firaaqan waxa weeye utrukuuna iska dhaafo weeye hatta tanqadi ciddadooda intay ka dhamaanayso waxana dhibina weeye oo muraajacada soo rajciyaysigan iyo daba gabgabeyntan ha ku dhibino dhahay ilaahi subhanahu wa ta'ala oo ama safaariquhuna oo ilaahi iska sii daayo oo ilaahi oo faraha ka qaada laga wadaa macnaha waxa weeye ciddadooda hay iska dhamaato hadii mesela manaagti hal dalaaqa lagu furay ama laba lagu furay waxa weeye ciddana ay ku jirto hadii islaax iyo wanaag ay ka tahay inuu soo ceshado ayaa markaas u khayra wala soo cesho kariya hadaysan arintu saas ahayne ilaahi oo faariquhuna oo ilaahi iska faaruqo faraha ka qaada way af Soomaaligu ilaahi ciddadoodu ka dhamaahaysa markaasoo ayadu markaasi waxa weeye nafteeda xur ay u noqonayso oo faariquhuna oo ilaahi bimacruufin si macruufa ayaduna sidaas oo kale intood weeye waxa weeye in la dhibaateeyo lama rabo oo markaasi la yiraahdo waa ku soo ceshanaya sida marka meelo badan dhacda weeye saasa markaas loo jahay oo faariquhuna amba iska faaruqo oo ilaahi bimacruufin si macruufa oo waxa weeye iska sii daaya ilaa ciddadoodu ka dhamaahayso wala tulaaruhuna bil muraajacati muraajacada soo celintane ha ku dhibana weeye oo muraajacada in lagu dhibo naagta markaas xaraam weeye ilaahi wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala wa ashidu markhaatiyaya ذوي عدل عدالة لبا أصاحيبا أو منكم إذن كميدا وعوية رجعادة لسوء إلهي هوانت أما مركا لفاروقا أيو الله فرايو وأشدوا أغا مرخاتي يلو رأي الله سبحانه وتعالى ذوي عدل نول إلهي عدالة لبا أصاحيبا أو منكم إذن كميدا مركا ناكتا وحوية لسوء الشنا أيو وحال الصنة يا أمر كان هذا ماشا وأشدوا وحوية أمر الوجوب معهن naagta marka la nikaaxinayo in laba markhaatiya ay joogan waxa weeye markaas arkaanta ay kamid tahay hadaan markhaati joogin ansixi mayso laba markhaatiya oo waliba dad walaasana la rabaa laakiin hadii mesela sida hadda qaar dhacayso naagtiyoon markhaati lahaynin amba hal qof iyo loo yeelay sida meelaha ka soo yeeraysa waxa weeye markaas waa la nikaaxshan leeyahay waxa wax nikaaxayna wax garta ma shayda wadadan diinta aqoon u lahaynin waxba ku ansixi maayaan ملو مرخاتية لا بد واي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ودار رسولك عليه الصلاة والسلام واشدوا ذوي عدل مركاسي رجع واحد مرخاتية اللي هو يلا ناكتيدي واسوعش ذا مركو مرخاتية واحد اللي هو يلا وهذا إيه كرت مركاسي إن هدو مركاسي اسكو إنكران إنك يا ناكت أو إما سور هجعيسان أي ترادو أصدقنا واكو سور هجعيسان ده واحد بدان عدا مركاسي دي لا يسقب صدو مرخاتية أصال حكمي لهاي مرك
day markhaatiyaashu yahay idoo cideeda ku jirta oo waqtigaas taariikhdu intaas ayuu soo rajciisay taasaa la xugminayaa laakiin hadda in markaasi markhaati loo sameeyo waajib ma ahan oo asoon u samaynin ayuu soo cesho karaa in naagta loo sheegana shardi maahan ayaduna sababtoo shaygan rajcadatan shay xaq ahaan oo isagu zawjka uu tasarrufku leeyahay waaye maxaa yeelay naagtu markay ciddo tarabus ay ku jirto waxay markaas waxa weeye haweenka la qabo ayay wax badan oo shan axkaam ayuga mid tahay ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala waashiduu markhaatiyaaya dawey cadlin cadaalo laba u saaxiiba oo minkum idinka mid a dadkiina muslimiinta weeye amase waxa weeye firaaqa laftirkiisa marka la furaayo laftirkeeda waxaa la rabaa in markhaati loo yeelo furiinka laftirkiisu hadda dadka qaar waxay dhahayaan oo dadka caamada su-aal ka keenayaan haddii waxa weeye naagta markaan furaayo markhaati ma joogin uu leeyahy inuu furiyana waa sheegayaa shardi maaha in markhaati joogaan naagta haddii la fura markhaati la-aan waa furmaysaa markhaati la-aan way furmaya markhaati la-aan waysan nikaaxsamaynin laakiin markhaati la-aan way furmaysaa waxa markhaatiga loo sameeyasa waxay tahay hadhow haddii naagta uu furo naagtina ay markaas furiinkii maqashiiyo waxaa dhici karta qaar badan inay inkiraan oo aan ilaah ka cabsanayn marka ay leesqabsada marka meeshaas markhaatigaas waa la xukmi lahay marka saasaa loogu baahanya laakiin markhaati la-aan haweentu way furmaysaa alla wuxuu dhaha haddana subxaana wa tacaala wa aqiimuu ooga ashahaadata markhaatiga ooga lilaahi ilaahay daraaddiisa u ooga oo dadka markhaatiga laga dhigaayo dar alla inay u markhaati kacaanaan laga rabaa laa lilmashhuudi calayhi ow lahu weeye midka lagu markhaati kacayo daraaddiisa hu oogina ama qofka loo markhaati kacayo markhaatiga markii laga kacayo wax markhaati laga noqonayo waxaa la rabaa dar ilaahay inay tahay ilaahay daraaddiis in waxaas looga markhaati kaca la rabaa markaasuu dhahay alla wa aqiimuu oogow dheh ilaahay ashahaadata markhaatiga ooga lilaahi ilaahay daraaddiisa oogo oo markhaatiga taaga oo uquma ilaahay daraaddiisna idinka ahaa saasaa markaasa markhaatiga waxaa la rabaa in dar ilaahay loo sameeyo liwajhi mashhuudu lahuga iyo mashhuudu calayhiga in la ilaalsho maahan weeye saasaa markaasaa l oo qofkan daraaddiis wax u samey hebel daraaddiisa u markhaati kacaya ama markhaati u noqonaya oo waxaas qofkaasaan ku tixgelaa lama rabo daalikum kiinaas la soo sheegowdha ilaahay suuradda awalkeedaa la ishaaraya ilaa halkan yuucadu bihi waxaa lagu wacdinayaa bal u fiirsa hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala axkaamtan dadka loo sheegaayo oo qaadanaya waa dadka noocaan how dhah ilaahay dadka aan noocaan ahayna axkaamtan maku camal falayaan waa sida wax badan la arkaayo daalikum kiinaas la soo sheegay yuucadu bihi waxaa lagu waaninaa how dhahay alle man ruux kaana ahaaday yu'minu billaahi alla inuu rumaynaayo iyo walyowmi yoomka alaakhir oo dambo axkaamtan waxa lagu waanaayo waa dadka ilaahay iyo yowmul aakhir rumaynaayo dadaan alla ka cabsanaynin axkaamtan uma qumaayaan oo naagihii ayagoo wada furay ayay haddana waa qabnaa leeyihiin si kastay wax ku raadinayaan dhibaato badan ayaa meesha taalla yuucadu bihi waxaa lagu wacdinaa howdha ilaahay man ruux kaana ahaada yu'minu billaahi alla inuu rumaynaayo iyo walyowmi yoomka alaakhir oo dambo qofkan wa amaa man lam yakun mutasifan bidaalika qofkii waxaa weeye arrintaas aan ku sifoobin iimaan ilaahay la rumeeyo yowmul aakhir aan ku rumoobin fa huwa liqasaawati qalbigiisaa qalalay kaas laa yuucadu la wacdi maayo kaas oo wacdigaas qaadan maayo liannahu lam yantafic kuma intifaacayo mid qamarjiihu waxba ku intifaaci maayo waxaas marka hadda ilaahay in laga cabsadana alla wuxuu dhahay waman yattaqi llaaha alla ruuxi ka baqa yajcal lahu alla wuxuu u yeelayaa makhrajan makaanu bixid wayarsuqhu alla waa arsuqayaa min xaysu meel laa yaxtasibu uusan ka malaysanayn ilaahay in laga baqo faa'iidada ay iska leedaha waa tan hadda axkaamaa laga soo warramayey axkaamtaasaa alla in looga baqaa loo baahan yahay iyo wax kasta oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala uu reebay ama ilaahay uu amray wixii markaasi manhiyaadka ahayna in laga joogsado wixii markaasi ma'muuraadka ahayna in la fartoomo waxay ku xiran tahay cabsida alle markuu qofku ku sifoobane ilaahay subxaanahu wa tacaala wax badan ayaa ilaahay siinayaa oo alla wuxuu dhahay waman yattaqi llaaha alla ruuxi ka baqo alla ka cabsada jumladaa markaas ictiraadiyaa la yidhaah waxay soo dhex gashay axkaam ayaa lagu jiray oo ku tacalluqaysa haweenka ku tacalluqaysa maxaa loo keena marka waxaa la ishaarayaa
إلى أنه لا يصبر على تلك الأحكام ولا يعمل بها إلا أهل التقوى ولو كان تقوضة iyo wacdiga kan idoo ahkaam lagu dhex jiray waxa la leeyahay ahkaamtan kuma sabra leeyri mana ku amal falo ilaa dadka Ilaahay ka cabsay mooyaan waxa iska fiican hadda in loola jeedo markaasi umum oo la khusuus taqwa fi amri nisaa kaliya aysan ahayn mufassiriinta badankoodu waxay maaratay ay yiraahdeen aayada waxay ku soo degtaan in la dhihi jira Auf ibn Malik al-Ashja'i ninkaas Auf ibn Malik la yiraahdo niman mushrikiin ayaa qafaasheen waxay qafaasheen ma asaga ma qafaalane wiilkiisa oo la dhihi jiray Saalim ayay qafaasheen marka wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasibu qaybtaas oo i'tiraadiyada waa marka wiilkiisa markay qafaasheen ninka liira Auf rasuulku u yimid alayhi salatu wasalaam isagoo u sheeganay dhibaatada haysata asoo nabi u sheeganay in wiilkiisa laga qafaasho cadow uu qafaashay markaas wuxuu dhahay cadow ayaa wiilkaygi qafaashay hooyadiisna argagaxa ku dhacday rasuul Allah maxaad furaysaa markaas anagu wuxuu dhahay alayhi salatu wasalaam ilaahay ka cabso sabar u dhahay adiga iyo haweenta wiilka dhashana waxaan idin farayaa inaad badisiin qowlka la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim oo aad ku wardisaan la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim hayla la hawla wala quwwata illa billahi al-azim waxa dawaan min kulli daa'in aw dhahay rasuulku alayhi salatu wasalaam ila al-maut wax kasto oo dhibaato ah oo cudura ayay daawo u tahay marka ilaa waxaan mawd ahayn mooyaane waxyaabaha badoo Ilaahay farajka ku furay kamid tahay la hawla wala quwwata hadda markaas ee baabkeeda hadda ma joogne laakiin markii dhibaatadaas oo kale ay soo gudboonaato ayaa la rabaa in la akhriyo sida hadda saxaabiga kan loo faray waa baxay markaas Auf haweentiisa u tagay nabigu alayhi salatu wasalaam sidaas oo nafara ayuu dhahay waayahayay tiri wixii nabigu amray alayhi salatu wasalaam waa yeelayna waxay bilaabeen markaas inay la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ay daldalayaan oo badinayaan wiilkii markaas isagoo qafaal ugu haystay wiilkii waxa la yiri warka wiilkii waxa cadawga haystay ayaa qaafil ka noqdo halmaamay la yiri fursad ayuu markaas oo ka helay marka qafladii markay ku dhacday halmaanshadii ay ku dhacday ayaa waxa waa ka soo fakada la yiri markuu ka soo fakaday ari badan oo lahaayeen ayuu ka soo kaxaystaa la yiri 4000 oo neefo ari ayuu ka soo kaxaystaa la yiri ilaa waxa maalul maalataya maalkaas waxa maalul adu waay cadow maalkiis waay gaala geeloodina wuxuu ka soo kaxaysay konton halaado ka soo haray kaxaysta xoolihii markuu soo kaxaystay Madiina u keenay Madiinatu Rasuulillaah abihiisa marka waxa nabiga ku dhahay alayhi salatu wasalaam in nabiga Auf nabigu u tagay markaas oo u sheegay wiilkii Ilaahay isoo daayay inta soo xoolaana gaaladii ka soo dhacayo dha arintaas xalaal ma ii tahay waxa gaalada markaas oo ka soo dhacay wiilkaygu markaas oo nabigu ha dhahay xalaalay ku tahay waxa ilaan gaal oo markaas waxa cadow ah oo waxa markaas muhaariba maalul muhaariba la yiraahdo marka day gaaladu muhaaribiin ay yihiin maalkoodu waa banaayin la dhaco aayadana marka soo degtay إلهي مركا وحودا ومن يتق الله على روحي كعبصده يجعل له الله وحو يلا مخرجا مخرج كربده الدنيا مد آخرة هاي إلهي سبحانه وتعالى فرج وفريا مركا تقوده فإذا ذي كمتها هداد إلهي كعبصته إلهي فرج أيوك وفريا هدنا الله وحودا ويرزقه الله وارزقيا من حيث ما الله يحتسب أوسن كمل سنين ما لا قلبي يسكسو دعينا وحلقة صينيا maxay hadda ninkaas saxaabigaas ila Auf xoolaha sadda markaas waxa asagu ma malaysanaynin ilaahayna makhrajo u furayo faraja ilaahay u furayo wiilkiisa cadawga ka qafaashay sidaas ayaa ilaahay uga soo deeyay xoolahaasina meesha way ka yimaado maalul muhaaribkaane ilaahay yaa ka soo qaaday marka hadda taas kaliyana ma ahane waa caam weey alla marka wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala wayarzuqhu alla wa arzuqaya من حيث ما لا يحتسب أوسن كمليسنين وقلبي يسكسو دحين قفك سو تقيا ابا سداسه او الهي سبحانه وتعالى رزقيسا وحو ككينيا ميل اوسن مليسنين او قلبي يسكسو دحينا wax laga siinaya meel oosan ka maleysanin ayaa ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ka siinaya ويرزقه من حيث لا يحتسب أثر أيا وحي هذا حديث أبا الله إلهي واديدي أن يرزق عبده المؤمن أدون كيس مؤمن كنو يرزقه إلا من حيث لا يحتسب ميلو سنكمل يسن مويه وحاوية مركاسي آيادة أيا لو شاهد سليا وحاوية مركاسي إلهي سبحانه وتعالى
ويرزقه من حيث لا يحتسب أيوده وعبا لغا أرزقيا ميلو سكمل سنين إلهي قيب كاس وحجروك أرزقيا ومن يتوكل روحي تلسارت على الله إلهي تلسارت أموره صودا ربي بارته كوكل صور هذا ومن يتوكل روحي تلسارت الله سبحانه وتعالى على الله إلهي كركيس تلسارت أموره إلهي سبحانه وتعالى أديبتو إلهي أمورتي إذا أديان كو تلسارت إلى ربنا إيكته وحاول اللسان كليس مجرد كيس ما وحاول تري ماي وحاول الرباه إن مركاسي كلسوني إلهي سو كو قبية ثقو أو مركاسي جازمة إنه مركاسي إلهي تلسارت من فوض أمره إليه وي كفاه قفك إلهي سبحانه وتعالى أمر كيس وبنك الله وكافنا يا ما وحي مروق لي إلهي وكافنا يا مركا أسباب تلقاتنا إن أسباب حتى لقاته توكل كما أنفسه معايا أسباب تلفتر كذا أيضا الله يسفري لكن أسباب تسئله اعتمادا ما هو إن استراد الشقدان أدب شقيسي صاحي شقدان هذا مركز معاه أباهنت إنه إلهي لما أهن مرول بإنه إلهي راسق وياهي أذيك أسباب تان أمرك إلهي أدكو قاديسيد ساسات أصمينيسا لكن أسباب لما اعتماده لكن إن أسباب تلقاته أمرك إلهي كمتاهي من أنفريسه إلهي سبحانه وتعالى ترى صارتنا ما ريبيس تاسو فهو حسب يقول إلهي الله كافي يسوي هذا يقفك الله جهله توكل ربه إلهي سبحانه وتعالى أصاه كفلا أليس الله بكاف عبده هو إن الله إلهي بالغ أمري أمر كيس كي جارا يوي أو إلهي سبحانه وتعالى أمر كيس الله وافلنا إياه أما إن الله بالغ أمره تاسنوال مركز تطويل آخر أمره ينقون يسا مركز إن الله إلهي بالغ أمره أمر كيس كي جارا يوي أو معناه إلهي وحي أو مركز أو دونه يا أدون كان مراد كيس إنه إياله إلهي سبحانه وتعالى جاريا فلا بد من إنفاذ مراده وإلهي سبحانه وتعالى مراد كيس إنه فليه لا بد وايا حصل من الشخص توكل قف كان توكل كي ماذا أما يوصل كإيمانه أو حتى قف كان لعله هذا وصل هذا وحن قاله عالم كنول يا وحن إلهي أقولنه رزق يا نلاشة الدنيا كجرة إلهي ما ترى صارتان إن الله بالغ أمره أما بالغ أمري إلهي أمر كيس وافلنا يا وانا قاريا وهو الشخص كان هدي توكل أو كي ماذا يا هذا وصل كإيمان إلهي سبحانه وتعالى مراد كيس إلهي وحي إلهي فلين ربا وافلنا ياوي وحي الله قدر يا قف كان توكل كي ماذا أما يوصل كإيمان لكن قف توكل كسميي وحو هلايا إلهي تكفير سيئات وهلايا تكفير سيئات أيها هلا دنبيس أيها الله ضعفيا أو توكل كاس إله استلسى تابع عبادة أنقنيس مركز الله دنا سبحانه وتعالى قد حقيقه جعل الله وإيالي لكل شيء الأرك كل جيسة قدرا قدر أيو إيالي وقته إيالي وهذا وحن مراد كان قارتان كيسة قف كان إلهي سبحانه مراد كيسة وقارسين أيو وحوال بوقت بإسكاليهم مركز الله سبحانه وتعالى قد حقيقه جعل الله وإيالي لكل شيء الأرك كل جيسة قدرا معناه تقدير وي أيا إلهي وقت أو قدرين لا يتعداه ولو نككد بين ولو اجتمعت جميع الخلائق خلائق ده لما أنت هذا يسوء أرورتنه إلى قدبيان لا يقدرون مكرايان وحوال با هديتاي نبض هديتاي هدي برواقدتاي وحكستبا وحوي وقت با إلهي أسميه هدي أدون كلما أنت يسوي ماذا أو ميل عن خير كذي لجارين أما نبض نبض خير كوي أن لجارين وحلقات عليه هدي ليرا عد كذا عليه كرتا بجر شيء هدي وقت يس لجارن عد وقت جالس كجود بكرتا أو وحوي وحكسي دري كرتا مجر تواهي حديث صحيح وصدا صيانة جري هاي الرسول كان واتونا واعلم أن الأمة لو اجتمعت وهذا قاتا أمده هدي أكل مان على أن ينفعوك إن يكون أنفعان بشيء إن يحقوق تران لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وحقوق مطاركنا إلا إلهي وحقوق رمويه استاس عكس جينا وإن اجتمع هدي أكل مان على أن يضروك إن يكون لبانه الرسول لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وحقوق من لبكنا إلا وح الله دوش هذا كوق رموياني رفعت الأقلام وجفت الصحف أقلامت مقاديس تنوال كوريالي warqadii lagu qorana waa ingegtay marka waxa weeye mashaakilka iyo masaa'ibta hadarna haysa
haddii caalamka dhammaantiisa isu yimaado haddaan ilaahay waqtiga oo ilaahay qaadaya aan la gaarin cid qaadi karta ma jirto sideeda lay u taagnaaysa dabku sidaas uu holcayaa haddii waqtigeedii la gaarana caalamka wixii jooga hadday isku dayaan inayna dhibaateeyaan waxba markaasi waxa weeye nama dhibaatay karayaan sababtoo hawsha ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala marka caqiidada qofka muslimka inuu saas ahdaa loo baahan yahay ee qolo hebla saan yeelaysa minay hadda kaas la arki lahay saas uu yeelahay waxa soo ka waxba kama jiraan qad xaqeeqaha jacala Allahu alla waa u yeelow ilaahay subxaanahu wa tacaala likulli shay'in shay la arka kulligiisa qadran qadar ayuu u yeelay sida barwaaqado ka raqaa'in wa shiddatin oo kala barwaaqada iyo shidada saas weey marka wax walba waxa weey waqtigooda inay tagaana loo baahan yahay asbaabna in la yimaado ilaahay subxaanahu wa tacaala la tala saarto saas ayaa loo baahan yahay saas ayaa markaasay arintu tahay aayadan waxaa loo isticmaalay in culimada caarifiinta dafcul karbiya loo isticmaalaa oo kurbada adduunyo midda aakhiro in ilaahay ka qaada loo akhristaa maxaa yeelay xadiis waxaa soo arooray ahay inni anigu waxaan ogahay aayad dadku haday qaada lahaayeen kaafilaheeda waana waman yataqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ila aakhir al-aaya marka taas saasay maartay u faa'iido badan tahay xadiiska waxaa man qada'a ila allahi kafaahu allah kull ma'unati qofki alla u go'a subhanahu wa ta'ala wax ka soo nafaqa iyo ilaahay ka kaafinaya warazaqahu min haythu la yahtasib ilaahay meeluusan ka bariisan ka arsuqaya qofki wa man qada'a ila qofki adduunyo u go'ane wakalahu allah ilayha ilaahay adduunyada u tala saaranaya adiga adduunyadii meel iskala dhaca leey macnaha in qada'a ila allah waxa weeye ilaahay buu ka cabsaday xalaashow ku aw maaratay doortay ahalkiisa dhibaatadooda ku sabray ilaahay fatxi buu furaya haduu masalan ba in kaana da'du cariiri ku jiray xagga nolosha ilaahay waa arsuqa meelusan ka malaysanin hadiis sahih waa toohay qofkii isman lazima al-istighfara qofkii istighfarta laazima istighfartu waxay kamid tahay waxyaabaha asbaabu risqiga lagu helo risqiga sababta u noqda jacala Allahu lahu min kulli hamin farajan ilaahay wuxuu yeelaa wax ka soo muruga faraj ومن كل ضيق مخرج wax ka soo ciriiriya ilaahay subhanahu wa ta'ala ka furaya fara makhraj uu sameynaya warazaqahu min haythu la yahtasibu meelu sameeyay ilaahay ka arsuqaya marka hadda insha Allah ta'ala 10keena dambe ayaan qaybta dambe ku qaadan doonaa hadda 10keen inta suu ka eegyahay wallahi subhanahu wa ta'ala salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh